أفر هدفان أتاغان حفظ الدين تلدى الله رب العالمين أنيقا يعد كستو إلى ميدا إنا سيب يحد أقادانو طريق النبي صلى الله عليه وسلم أنكو قادانو ديبكر هير مقدشاها يانا أنكا هدلو ودن كان قرصور عادل أو مدح بنان إنو يهشو waxa meelaha lagu qorqorayo markii aad guriga hooyooyinka joogto amba SYL anigu kuma qanacsani mana ka jirto wadanka sinaan cadaalad midnimo garsoor madax banaan wadankan kama jiriyo wadankan garsoor dadka lagu dulmiya ka jira taasi waa taa reer muqdisho marka waxaan ka rabaa hal shay gabadha Soomaaliyeed ee muslimada jaaniska isiisay ee gurigeeda joogto warkayga gaari doono anigu waxaan baraha bulshada u galay ninkaaga inaan dulmi lagu dilin wiilkaaga inaan la dhicin gabadhaada inaan la qufsan aabaha inaan lagu hordilin amba waad itaageeri waad ii duceyni ama waa iga hor imaani aqligu sidoo ku siiyaan ku noolaan doontaa waxaan culimada muqdisho kaga duwanahay yaa arkay ciyaal weerada caligeedii 3 bilood ka hor ka soo baxday ee umada dhag ka dhigday wadaad ka hadlay waa kow maantay ka soo baxeen dharkeenley oo aan aaminsanahay kan iyo telefishinada la midka inay baahiyeen oo habeen warbaahinta muqdisho inta ugu badan ay cadeeyeen in dharkeenley laga qaxay wadaad ka hadlay halay keeno anu wadaadka ugu horeeyanaha marka hool laga aamusay oo position waa labo runta su'aalaha weydiinayso kullu waa qaali wadaadadu waa labo mid الله رب العالمين وحو أقناي أن كوكل صونين معانيه ودين قلبي جيس أن دقين waxaan inay qalbigaaga dagaan adigu kugu xirna ilaahay ku xiran anigu muqdishaninka ugu aqoonta yar bana jaaniskaagan ka faa'iideysanaya culimadu way iga aqoon badan yihiin way iga aqli badan yihiin dhihida way iga dhihi og yihiin laakiin nafsadeedu anigu ilama weyna umadu inay badbaado ee dulmiga iyo cabsiinta iyo joorka lagu hayo umadu ka baxdo ee umadu kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam ay madax banaanato halka reer muqdisho wuxuu ku jira inay kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam qaataan